بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل تبع على ونكسن دمان وضع صومالي جوب كستا يقول كستا شوكتان وبرنامج كني افتيمينتا يورد دق سرع علوس تشاتشوسكي عبدي افتن oo qabiilka uu sheeganayo iyo reerka uu sheeganayo iyo waxaanu meesha ku jooga intuba ay been noqdeen. waxaan ka codsanayaa barnaamijka uu soo gaaro inaad sii shargalsadii salaad ku joogtana u soo tukabad hayna gal hadii ka nabiga sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Chachus boy ayaan xogtiisii oo dhammaystiran soo helay meesha uu ku noolaa cidda uu la noolaa Nairobi intuu joogay shaqooyinkii uu qaban jiray qabiilka uu sheeganayo oo aanu ahayn sideedaba iyo hooyadii halka ay ku nooshahay iyo qabiilka ay tahay iyo ninkan cid uu shaqeeyo shaqadan ma halkuu ku bilaabay mase Afriku kala yimi barnaamijkaas sultaagana waxa kugu waajiba barnaamijkeena si shargarsid ana waxa ugu waajiba inaan kugu soo tabiyo oo ku soo gaarsiiyo waayahay Abdi Iftin ninka la magac baxay ninkan Nairobi buu joogi jiray Nairobi markii uu joogay wuxuu Chachus u ahaa oo la shaqayn jiray idaacad reer galbeed ku leeyihiin oo khaasatan dalka Faransiiska laga leeyahay oo Global Investigation la yiraahdo oo waxa weeye arrimaha dadka Soomaalida ah iyo dadka Islaamka iyo arrimahooda ururisa oo daba gasha oo faaqida oo falanqaysa oo rogrogta ayuu horta ninkan u shaqayn jiray halkaas wuxuu ka gudbin jiray xogta iyo sirta dadka Kenya ku nool dadka Soomaaliya ku nool sida loogu nool yahay waxa ay qabtaan dadkani waxay yihiin waxa la yiri ninba bari ri lagu qabtay ri isoo fuushan bali marka sali war maxaa rida ku geeyay ime wasay ila goormaan hawshan ku jiray buu yiri haatan Abdi Chachus boy ime hawshan soo waday ila iyo goorma way waa ila Nairobi shaqadaas uu ninkaas hayn jiray idaacadaas uu shaqayn jiray xumaanta iyo ceebta iyo fawaaxishta iyo gulnimada iyo sharaf darrada iyo nacaybka inta xunbu umada Soomaaliyeed ka gudbin jiray isagoo shaqadiisii haysta ayaa waxa heshay oo la kulantay naagdiyaado Lisa Shirin naagdiyaado ayaa ninkan la kulantay waana naagti ka dambeysay ninkan inuu Mareykanka yimaado naagta saa waxay ka yaabtay firfircoonidiisa iyo shaqadu ninkan ay qabanayo iyo sidoo uu la xaadsanayo iyo sidoo umada Soomaaliyeed ula dagaalamay waxa tiri kari waa bakiin aan ficilha lottery wax la yiraahdo ninkan lagu soo qaaday haba yaraatay ma jirto waa been shilinta si waa barnaamijku ku soo galay waxa weeye media ku soo galay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee Afrika ku nool uu ku wareeriyay ninkan lottery kuma iman ninkan wuxuu ku yimi box baa lagu ritay sanduuq baa lagu soo ritay Chachus inuu yahay anfacaya maanta oo kale inuu gaalada anfacaya bay naagta waxa weeye Lisa Shirin ogeyd waxa lagu soo ritay sanduuq baa lagu soo ritay waa la soo qaaday kadibna wuxuu ka shaqo galay kaniisad la yiraahdo CWS marka la soo gaabiyo ayuu ka shaqo galay kaniisada marka waa kaniisada looga qaaday wareysyada maartay umada Soomaaliyeed ku aflagaadeynayo oo diinta ku caayo oo Ilaahay ku aflagaadeynayo oo ambiyada ku aflagaadeynayo oo Ilaahay ambiyadu maxay rag u noqdaan maxay naaga u noqon waayeen Ilaahay maxaa nin loogu waca mar uu meel kaniisada taagan yahay maartay qolo khudbadayn leeyahay malcaamada iyo diinta Quraanka iyo sida wax la soo baro iyo macallimiinta caayo oo diinta caayo Quraanka caayo maartay shaqooyinkaas uu ninkaas haystay shaqadani waa intii aanu Nairobi ka soo bixin iyo intii uu Mareykanka joogay labada waa ka shaqeynay bal waxa ila daawataan isagoo Afrika jooga oo afku dheer yahay eegay oo aad moodo dawaca sumaysan oo kaniisadii CW dharkeedii gasho halka shaabadu ugu dhigan tahay oo khudbadaynaya marka Nairobi buu jooga Soomaaliya maqal weeye waa marka la soo qaadayo badan waa dambaysa maanta dhagaxa inta ku leekan doonay horta barinta la dhigiso. Hello everyone, thanks for joining us this evening. Church World Service bariyada marka Nairobi buu jooga calaamado talka u saaran kaniisadaas uu ka shaqo galay lacag intee la qaataa ninkani oo kaniisada ka qaata kaniisada samxuu u qaabilsan yahay kaniisada ninkani wuxuu u qaabilsan yahay communication specialist waa arrimaha khaaska ah iyo xiriirada khaaska ah
isbishaalka ah buu ninkan horta qaabilsan yahay maxaa ka mid ah marka shaqooyinka loo diray dhalinyarada Soomaaliyeed inuu soo dumo inuu waxa weeye diinta u bahlageliyo dhaqan iyo Soomaalinimo iyo dad Mareykan joogo meel dhow ka hadlaysan ilaahay ma jiro inuu yiraahdo communication specialist wa arrimaha khaaska ah ee khusuusiga ah ee qamshaxda ee alla koodnimada ah ee baayo hoogiya balambalka buu qaabilsan yahay mushaarata la ku qaataa ninka sanadkii celis aan $7,000 ayuu mushaaraan u qaataa waa sanadkii salariga sanadkiisu wuxuu u dhaxayaa 70 ilaa iyo 50 buu u dhaxayaa lacagta mushaar ahaan buu ugu qaataa kaniisadaasuna ka shaqeeyaa markuu ilaahay aflagaadini anbiyada caayay macallimiintii quraanka caayay markii dambena waxa la yiri buug baan ku qoraynaa buug isagu ma qorin niliyada Alexander Max ayaa buugan qoray oo kaniisadu ku maalgelisay ninkani waa khasiis weyn waa khasiis baan ku yiri kaniisadaha kuwa fadhiya khasiisiinta buu kamid yahay waliba arrimo khaas ah buu isagu waxa way ka shaqeeyaa mana aha ilaa iyo maalinkii waxa weeye Soomaaliya ka soo baxay ilaa iyo maanta buu jaajuusnimo iyo alla koodnimo iyo diinacay iyo ilaah aflagaadeyn iyo nacayb islaam waligiisu ku jiray wuxuu yiri inkastoo durduurto dooxyada muquuro ku dabaasho wabiyada ama raacadaad weyn dad hore wuxuu yiri abidkii ma daahira mana daayo waligi waxa diintu necab tahay doofaar waa halkiisii jaajuus boy shaqadan waa ku soo mabay isagoo yar buu soo bilaabay Afrika ayuu ka soo bilaabay ayaar mood caana boora kaniisada buuga maalgelisay Alexander Max baa buuga qoray waa nin qoraa baladeegay buugan uu leeyahay waa la iibsado intaas milyan baan iibsaday 32,000 bal faa'iido xalaale iyo wax ka jira ma jiraan Amazon waa ka eegi kartaan eegay buugaas cid iibsatay ma jirto dadku damiir bay leeyihiin waa bini aadan qofku si kasto gaal u yahay nin hooyadii caayaya qof waliba waa ka naxaya midda kale qofka jaajuuska ee duliga ilaahayna ma jecla umadiisuna ma jecla gaal iyo islaam nin dadkii uu ka dhashay iyo deegaanku ka yimi aflagaadeyn iyo caaye warina dooni ma inna dhageysan maayo buugu sheegayaan horta wax allaali wax ka jira iyo waxba la iibsaday iyo waxba faa'iido iyo guri baan gatay midna ma jirto ninkaasuna la degay waana saaxiib baladeeyay guri iibsaday hanto haysta midna ma jirto hadaba ninkan qabiilkiisu waayo waxa la yiri waaba waxa jiray nin loo jeedo salamadle oo reer Burco aha tuug buu ahaa marka salamadlow caan baa tahay nin kasto miyiga ka yimaada oo waxa weeye xoolo ku qabsada aniga iska leh afar marxaad furtan waa la socotaa maalinki dambe ba wanka marka la tumo oo waxa weeye la dhufaano wuxuu noqdaa lax buu ekaada oday wan wata buu arkay rasuul wallahi kaasa la xwataan maanta ku qabsado salamadna iyada waa tuug caana afarta iyo afku ku qaada markaasuu oday ku qabsado laxdaydii aniga iska afartii oo geedaha ka soo hadlay waa runtii salamadna isaga war malihid dadkii waa soo yaa war ninka miskiinka ma aniga iska afartii oo marxaad furta wuxuu maxaa wata jaalay lax weeye Allah isaga leh afartii saylada joogtay tuugada inta isku marxaad furta wankii intu saaxiniya oo qabto biilaadeer waa wan baa laga yiri laxma he waa wan baa laga yiri biil haatan dadkii afka abuurta ka sideynay daarood baa baxsanaya hebel waa daarood hebel kale waa daarood ninkan daarood baa baxsanaya waa raxan weyn miskiina waa eelay qabiil baa loogu faanaya hadaba ninkii eelay ma he waa gari baa laga yiri ninkani waa nin daarooda oo kabla laxa oo koomba oo gari koomba way qabiilkan uu sheeganaya raxan weynna hooyadiisa raxan weyn oo eelay ah ninka walaalihiisa la yaqaana nuur iftin nin la yiraahdo baa la dhashay iyo gabar kale oo Saacadiye iftin baa la dhahaa Xaliima iftin laba qof baa ninkan la dhashay waa wiil iyo gabadh wiilka nuur iftin baa la yiraahdaa gabadhana waxaan u malaynayaa kuma dambaabay in Saacadiye iftin la yiraahdo waa nin gari kombo ilma adeerayaal boodariyo foosta lagu soo riixday hadhiine ninku waa nin gari komba
dadkii afka abuur waxaan arkay candha cala sow oo dhaligi kala qaaday oo qarmuunkii media laga fariisan waayay daarood baa baxsanaya ilaahan Umar Khaliisi bay taageertay hebel kale baxsan isagu mar allaala iyo markuu qof arko dhaqaaqaya ilaa waa nin cuqdad qaba oo awoowayaashii sagaal awoowahay eegay daarood baa dilay biyo sagaal awoowahay mid laba marxaan miyaa dilay biyo toddobana ma jeerteen baa dilay biyo cuqdad buu qabaa isagu la yaabi maayo waa nin xanuunsanaya laakiin waxaan arkay kuwa badanoo magacooda aan qori karino daarood intay maqleen saacadu daarood kaga fadhiisatay wixii daarood waxa weeye watana waa negative wixii daarood watana daarood ka soo jeena waa positive warinkani daaroodna ma yaqaan raxan weynna ma yaqaan hawiyana ma yaqaan Soomaaliyo dhan buu aflagaaday Soomaaliyo dhan buu caayay Soomaaliyo dhan buu taajuusay allihii uu way ninkani caayay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam buu caayay maanta soo nin gari koomba ma cid baa yaxta waa in adeerkay haddana wallaahi billaahi tallahi baan warigi ula jirsanay waa nin gari koomba ana nin harti koomba baan hay walaalo wada dhashay 10 oday ma kala soconaan iyo gari koombe baladeegi waa in adeerkay laakiin in adeerkay alla kood ah oo daalin ah oo ilaahay aflagaaday oo nabi maxamed iyo anbiyada alayhi salaatu wasalaam aflagaaday oo Soomaali waxa weeye baabiyay oo dhaqankan waligii lahaa oo hooyadii caayay eegay meel uu naga soo galo ninkaasi iyo wax allaaliyo waxaan ku taageerayaa midna ma jirto hadaad u haysteen dadkiina xanuunkan ilaahay baa idinka biin kara xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunka daaroodka liyaada wuxuu ka mid yahay xanuunada bini'aadamka ku dhaca buu ka mid yahay qofka hadaad tiri warbal qofka ataay kugu nacay ka war hadaad iimaan tahay iimaan xaramka hadaad tujisid oo aad nin daarooda tahay eegay mar allaali markuu qofku ku ogaado inaad daaro tahay qofkiis bedelayaa sida inaad aabiyo hooyadii aad meel ku wada guuracday laakiin de wuxuu yiri asallahi caalamuna usbana masafar ba waxba wuxuu yiri quraanshadu waa qaran oo waa qaran qabiiliya wax sa qiimaheed baay waxba waanay qaban karin ayuuba turaabka ka badan buu tirana loo daayay hadana tukaha boobaya toban hal weeyana maxaad aniga iga tigsataa tiir biraan hay magacan daaroodka la yiraahdo أنا عندنا أفلقادين عندنا عن عين مجا دارود كلي يرادو إسقى مشغول كيسا وعوي برهان تيسا برشي كيسا خمسة حديسا حينيه يسا وحول بسقى بوق سقى سوفلان غير كان بوق يقع سوفلان باكو تاتك كلام ما أركان با عير يورستو وشري هبر بسكها وهولي هلا يناطمو بير هلا waraariga waa lagu jiraa waladay waraariga tuuga ku jirta tulay war habar beeska howle helada inoo tuma laxda dharan ha dhaafina laba jir waa lugu iyo bari saddex jir waa siniin waal laba gura laxda dharan ha dhaafina nimankan daaroodkani iyaga gudahoodii iskala shabaxtamay umada ma arkaan way ka saay daarood weeye daarood wey ninkan waa daarood kan xilahayda iyo ku farxi lahaydayaba ninkani waa nin gari koomba oo koomba kablalaha oo daaro Ismaaciila haye hadda yaa naga celinay marka hadaanu suqaarsano iyo hadaanu jarjarno iyo hadaanu shiilano iyo hadaanu solay ka dhigno iyo hadaanu muufada ku gurno balka waraadeen hadda sooma hiilin karo yaa iga afweyn waa nin gari koomba idinku waxba u qaadi weydeen waxba waa u tari weydeen dibadaanu soo dhignay ceebtiisaanu dibada u soo saarnay inuu nahaab yahay baanu keenay diinta ilaahay inuu caayay beenaale yahay waxba aanu haysan maxaa ka difaacdeen 360 digri hadda saacada saa u wareejiyo waxaan kaaga dhigi karaa Subirian man kaaga dhigi karaa Subirian laakiin qof islaam ma baan haydee qabiyaaladuna heerka aniga igmay gaadhin qofka waxa la gaalka dil gartiisana si qofku in adeerka haduu yahay oo diinta wax ka sheego ilaahay wax ka sheego waxba kuma aha ilaahay diintu waaba meel fog qofka Soomaali jaajuusa baan wax ku ahayn haye kuwi baroranay meeye waa nin gari koomba hooyadiina waa raacayn waa elay hooyadiisu ugu abtirsaday waanu dhahaa Naali Axmed baan hay inta ka soo fariisto nin waariyahan Naali Axmed baan hay kasar waxa bas dhaamin ba Axmed Isiid baladeegi hooyadiisu ku abtirsaday waa elay hooyadiisa elaya isaguna nin gari koomba laakiin waa jaajuus mujrim ah oo ilaahay ka furtay
oo waxa weeye daalin ah oo aan cidna dhaafin cidna hooyadii dhashay buu caay cid wax u yahay ma jirto walaa gari baan wax u ahayn walaa daarood baan wax u ahayn walaa Soomaali baan wax u ahayn cid allaali cid wax u yahay ma jirto kuwii daarood nacaybka ku taageerayo warinku waa daarood isaga laftigiisa daarooda dib u taga marka مش فكرتني دب دقة والخير يا بركة دينا جريا وبرنامج جديد في تحقيقك ولاك افتح بورنا له ترى تدوم كل بدون راح تكتب ورسل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.